يلا سوق الدسان iyo shaqo qarana waa quraacdini bir horan ka hadlay aniga chocolate way chocolate soo wad malena soo chocolate ana ku jirina waajibaadkeeni gudashadiini waajibaadka difaacista dalka iyo diinta iyo dadka cadawga ummadda Soomaaliyeed jamhadda argixisada ee Muuse Shaani wuxuu isku dayay maalintii labaad oo toos wuxuu isku dayay inuu soo weeraro dadka iyo deegaanka iyo dalkiina iyo magaaladiina wuuna ku fashilmay wuxuuna kala kulmay muxuu ahaayay jab iyo halaag waxaan u sheegayaa ummadda islaamka annagu waxaan ilaashananaa maatideena iyo ummadeena iyo hooyooyinkeen iyo aabayaasheen xaq baan u leenahay inaan ilaashano wuxuu ahaayay sharcigu wuxuu qabaa naftaada iyo maalkaaga iyo diintaada iyo cirdigaaga iyo sharaftaada inaad difaacatid waxaan kaloo u sheegayaa beesha reer Sheekh Isaaq waxa la yiri laba qof haday isdisho وين قاتلانهم مقتتلون فاصلحوا بين اخويكم بالي لaba qolo hadii isdisho walaalihiina waa la qabtaa Muuse Shaani waa ognahay inaad muxuu ahay ku raacsantihiin kala boqolkiiba 80 xumaanta oo aad ku leedihiin muxuu ahay ciidanka qaranka waajibkiisa ha guto ciidanka qaranka xuduudaha soo xiro xuduudahan ilaahay wuxuu yiri inni jaacilu fil ardi khalifatan ana dhulka ka yeelay khaliif qolo walba xukunta Muuse Shaani khaliif wuxuu ka yahay Hargeysa iyo Burco meeshan anaa ka khaliif korneyl Shaani hadduu reerkooda korneyl u yahay anana reerkayga anaa korneyl u ah horta ha ogaado talabaadna waxaan leenahay annaga wax kale ma naqaanaba haddaan nahay dadka deegaanka Sooliyeysanaa gacay sayidkii baa nagala dardaarmay lix halkaad ku joogtaan dagaal laabta ku ogaada buu leeyahay wax kale ma naqaanaba 1905 Soomaaliyan xabada qoomba anagu baan xabad ridinay adigana waxay rabtaa maanta oo la marayo qarniga 2023 inaad anana muquunisid oo annaga muxuu ahaayay noo dawladaysid oo annaga qorin muxuu ahaayay aad shaqadaydu waad nagu haysataaba waxaan ku leenahay waxba ha qaadan waanada UN-ka waxay ku sheegay ha qaadani ummadda islaamka waxay ku sheegay ha qaadani dawladda federaalka iyo madaxweynaha sharafta Xasan Sheekh wuxuu ku sheegay ha qaadani soo wad geedkaad gaadhid mira ka guraayar annagu waxaan nahay dadkii deegaanka ahaa xaq baan u leenahay inaan difaacno oo ka difaacno dhiigabada noocaas oo kala ah inaan ka difaacno xaq baan u leenahay waana dirirnaa inta naftu nagu jirto inta aad hawshada wadid anana taayadan wadanana adeer ee wixii aan kala helno baan wax ku qaybsananaa nafla caarigi wuxuu ku baday inaad duqeyn madaafiici goobta isticmaashid madaafiici goobtana waxay ku dhacaysaa xafisaan hurda oday masaajid ka soo baxay dhakhtar nayrasa gabadh yar oo canjeelo dubanaysa kuwaasna meel bay noogu qorin anaga waa qoranana liiskooda yawm min al-ayyamna oo kula xisaabtamana halkaas aan kugu soo dhigin halkaas sidii Colonel Gaddafi waa lagu kufsanaya maalmaha kamid ah insha Allah bidnillahi kariim waxaan kaloo u sheegaynaa muxuu ahaayay xukuumadda iyo dawladda federaalka Soomaaliya way ku mahadsan yihiin taakulada iyo taageerada ayna siisay daweynta dhaawaca iyo dawada ay noo soo dhibtay waa uga mahadcelinaynaa aad iyo aad baan halkan uga mahadcelinaynaa in alaalayntii nagu raacsan inaan Soomaaliya la kala goynaa waa uga mahadcelinaynaa muxuu ahaayay taageerada ay nagu taageereen mowqifkeena meeshana mabda la isku haweeyay waxa weeye Soomaaliya hal kala gooyo oo Talyaani iyo Ingiriis loo kala qaybinta guuleystay iyo hal isku hayo anagu waxay taaganahay haddaan nahay beelaha diga gobolka Sool iyo Sanaag gobolada Sool iyo Sanaag yaciin Soomaaliya kala gooy maysan tan noolaay wiil hadduu naga haray wiil wallahi gaan loo kala goyn Soomaaliya muusana wuu riyoonayaa inaad riyootid waxa ka horeysa inaad seexatid inta nool anaga adeer Soomaaliya kala goyn Soomaaliya waxa weeye raas Gambooni ila raas Casayr annagana Ilaahay nagu booyaray annagana waajibkeenu naga saaran yahay qodobka 9 wuxuu qorayaa midnimada iyo isku haynta ummadda Soomaaliyeed waa muqaddas wayna og yihiin lixan xildhibaan baad ku leeyihiin reer Hargeysa reer Burco Soomaaliya wayna og yihiin dastuurka maalin walba way akhristaa boorsada ugu jiraa in Soomaaliya la kala gooyo meesha ku qoran tahay dastuurka laga soo saaro waxaana la weydiinayaa su'aashaas Maxamed Xaashi Cabdilaahi iyo wasiirka ku-xigeenka Saalax run la soo sheego adeer haddii Soomaaliya rabtaa in la kala gooyo dastuurka lagu soo qoro haddii aan rabina waa taqaanaa dastuurka si fiican u taqaanaa akhriso qodobkiisa 9 midnimada iyo isku haynta jamhuuriyadda iyo jiritaanka ummadda Soomaaliyeed qodobkiisa koowaad farqada baa qoraysa dadka yaan la lugoynin marjaca kaliya loo noqonayo waxa weeye dastuurka iyo kitaabka meel la kaga qoran labadaba in la kala gooyo Soomaaliya kaartooyinka uu isticmaalayo Muuse wuxuu isticmaalayaa waxa weeye kaartooy isticmaalayo waa tii hore laga tagay weeye annaga waxaan ahay electronic age isagana waa atomic age waa dadkii oo 60kii iyo 70kii naqshadii la isticmaalayay oo isticmaalaya waa laga ilbaxay atomic age ka isticmaalaysid adduunka hadda wuxuu marayaa neutronic waxa la isku darayaa laser iyo drone iyo muxuu ahaayay bayrakdaar waa laga ilbaxay kaarayaashan soo dhaxlaystay oo maal barijiga ka bedeshid inaad uga cali waxaan ku leenahay suuqa ciidanka intaad Alibaba intaad wacatid hub cudan iyo farax fiican ka soo iibso waxaan kale u sheegayaa
aniga ciidanka weligay kuma arag dhowr iyo 10 sano ciidanka kuma arag qof aan sayno oo haddana iga codsanaya inaan isdiibo mikrofonna weligay ma arag samiicad korneyl intuu samiicad soo fulay gaari dhahaya isdiib ciidanka qaranka isku dhiib hadda odaygii soo dirtay oo siflaboodada ahaa howlgelinta joogay oo korneylkii muxuu ahaa maanta dhimanayay miino wuxuu dhintay isagoo dhahaya isdhiiba annaga ma nihin ergo isagana ergo maaha waa field operation meeshan waa field dhimasho weeye deadline weeye waa dangerous waa meel riski ah inaad samiicad gaari intaad soo saartid madax la soo baxdid oo saqafka lagu gooyo koorsaa ka dhiman waxaan ka codsanaynaa inuu koorsi ku celiyo oo tababar fiican hal koorsaa u dhiman hal koorsa inuu diro isagoo le waa dhiman waa isdhiiba saqafkaa sare la jaray markaasuu gaariga la gagashay darawalkii dawaqay isagii darawalkii gaariga waxa isla dilay qooqantii waxa yidhi xaajiyadii saarnay marka waxaan sheegayaa koray muusow bedel kaartada adeer electronic edge baa la isticmaalaya waa laga baxay waxaas adeer waa siyaad bari ka koobiyeysay wash out weeye wash out والله محمد ما حق حاجه chance نوغو سين والله كورس والله لا سلا غارمي بالله